dhegaystayaal inkastoo aynu muslim nahay oo aynu aaminsannahay shar iyo khayrba inta aynu nool nahay wixii inagu dhici lahaa inay cindallaahi hore uga xukunaayeen haddana ducada waynu jecel lahay habaarkana waa necabnahayoo balaayaynu ka filannaa duco waa khayr iyo wanaag aad qof ama koox la jeclaato afkana aad kaga tiraabto waa hab aan abaalgud ka taganayn oo loo akhriyo qof aad jeceshahay ama wuxuun waxtar ah kuu hidiyey weliba jeer aad u baahnayd habaarku isaguna waa lidka ducada qaamuuska af soomaaliguna wuxuu ku laqbeeyey qof ama wax kale oo loo baryo inay wax xumi gaaraan waxaa la mida amaba u dhowdhow erayada ah yu-asho ilaaco kuhaan dhaawasho inkaar aweyti iyo asmo oo iyadu ah magacyo gaara oo eebba leeyahay wadaadada yaqaanina ay wixii dhiba ku habaaraan wuxuu habaarku ka yimaadaa qof la haydaarteeyey oo aan lahayn itaal oogo iyo xeel aan habaar ahayn oo uu isaga celiyo cidda haydaartaysay awoodaidu waxay kan la haydaarteeyey geyaysiisaa inuu u qayla dhaansado awood kale oo u heelisa ugana aargudda ciddii gardarrada ugu taagsatay wuxuu dulmanuhu miciinsadaa eebbaweyne awliyadiisa caanka ah awoowayaal hore ama rooxaan uu isleeyahay hadduu u qaylshado waxay awood u leedahay inay aarkiisa u soo fududaato hoog iyo ba'na ay ku markato ciddii inta iltaaldarradiisa ku haadsatay wax ku yeeshay dhaqanka soomaaliyeed kolkaynu u noqonno waxaan ogaanaynaa inuu habaarku meel weyn kaga jiro fakarka in doora oo bulshadeenna ka mid ah wax badan oo uu qofka soomaaliyeed samayn lahaa ama aanu ka siqoodayn ayuu habaarka cabsi awgeed isaga daaya sidoo kale wax badan oo aanu sameeyeen iyo wanaag uusan yeeleen ayuu qofkaasi yeelaa isaga oo ka baqaya haddii aanu yeelin in habaar ku dhaco waa nin habaaran ama waa habaar qabe ayaynu ku sheegnaa qofka dadka lugooyada ugu maqnaada had walbana hif iyo haaraan mooye aan laga mahad sheegan bulshada soomaalidu siday rumaysan tahay qofkaas oo kale cirib xumo ayaa u dambaysa waxaana goor ay noqotaba ka soo ifbaxa astaamaha habaarkii ay la heleen dadkii uu lugoyn jiray qofkaas oo kale kolkuu cudur xumi geesaha u dhigo ama inta dhasha laga qabsado uu gablamo ama ay carruurtu ka le'ato amaba ay xarig lamasitaan u bataan waxay bulshadu isugu sheekaysaa hebel waxaa ka soo baxay hahdii iyo habaarkii dadka guud ahaan inkastoo laga cabsado habaarka qofka taagta daran ee la gardaraystay haddana waxaa jira dadka qaar aad moodo in la isku raacsan yahay inaan habaarkoodu dhulka dhicin lagana digtoonaado in ama wax loo dhibo ama wixii ay calmadaan loo diido waa qumay ayaynu ku sheegnaa haddii uu nin yahay qof dumara haddii ay tahayna waa qumanyo ayaynu ku tilmaannaa iyada ayaana laga sii baqi ogyahay qofkaas oo kale bulshadu waa isu sheegtaa waxaana loo huraa wax aan loo hureen hadduu ahaan lahaa ruux dadka badan la too ah qumiga iyo qumayadu ma aha habaar la helid waxaan ahayn dad ku caanbaxay amaba lagu tixgeliyo weliba lagama ducaysto saa waxaa la qabaa inaan ducadoodu kicinin oraahda ah qumaya ku qaaday waa oraaha ay soomaalidu isku habaarto oo aan weli xusuusteeda ka bixin qumiga iyo qumayada ka sokow waxaa jira dad kale oo habaarkooda laga baqo sababo kale dartoodna la isaga dhowro waa dad bulshada qaybaheeda ku kala abtirsada asiida ahaan iyo meekhaan ahaanba ku kala duwan yar iyo weyn way leeyihiin culimo iyo caamaba way leeyihiin rag iyo dumarna way leeyihiin waxaa dadkaas ka mid ah waalidka oo waxaa ka mid ah madaxa tolka magac kasta ha loo bixiye oo waxaa ka mid ah ilmiriglaha oo waxaa ka mid ah daanku qalinlaha oo waxaa ka mid ah wadaadka oo waxaa ka mid ah uguna daran gabyaaga kuwaasoo barnaamijkan iyo dhowrka xiga aan iyaga iyo habaarkoodaba mid mid ugaga faalloon doono aan haddaba maanta ugu horraysiiyo labada waalid iyo habaarkooda aanna iraahdo maanka qof kasta oo soomaali ah waxaa ku kaydsan inay waajib tahay carruurtu inay waalidkood si kasta u dhowrto wax walbana ay iyaga u hurto ama dhaqankeedu ha ugu wacnaado ama diinta islaamku ha ugu wacnaato ama labadooda oo wada jira ha ugu wacnaadeene soomaalidu waxay dhab u aaminsan tahay waalidka oo lagu afceliyaa inay xaaraan tahay guuldarrana laga kororsado waalidka oo la qadiyo ama xoolo laga lex jeclaystaa inay hidda xumo tahay cirib xumona laga dhaxlo waalidka oo la isku dhereriyaa inay anshax darro tahay
waxa laga filan karo oo keliyihina ay yihiin hoog iyo ba iyo hantooley marna hiddaha soomaalidu dulqaad uma laha qofka la dhalay in sidii laba siman uu kuwa dhalay ula dhaqmo hadduu waalidku wax kaa qabsado inaad isku dejisid ma bannaanee waa inaad halhaleel ugu sii daysaa haddii uu tale kuu soo jeediyo ha yeeshee ay adiga kula ahaan weydo maya qayaxan lagama horgeeyee waa loo miiriyaa waxay kula tahay ayaa si qabow loogu bandhigaa kolkaasoo laga yaabo inuu kugu raaco haddiise uu tiisii hore ku adkaysto waxay badbaadadu ku jirtaa inaad ka yeesho haddii xataa aadan ka yeelayn waxaa loo muujiyaa inaad ka yeeli doonto si goobta aad joogtaan aanu caro kala tegin dabadeedna aan habaarkiisu ku haleelin waa aadane oo waa suuragal marmar inuu waalidku warasadiisa ka gardaraado sidaasoo ay tahayna hiddaheennu ma oggola in lala garamo waxaana facshar weyn ay bulshadii hore ee soomaalidu u taqiin qofka iyo aabbihii ama qofka iyo hooyadii in meel fagaaro ah gartooda lagu galo habaarka waalidka guurdarrada laga dhaxli karaa waa wax ay soomaalidu wada rumaysan tahay oo tix iyo tiraabba suugaanta ummadda aad ugu xusan arrintaana raggii gabayadooda ku xusay waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay aadan gurey maxamed cabdille oo ku jiray maansayahanadii qarnigii 19aad kuwii ugu magaca dheeraa noloshiisii dheeraydna ku dhammaystay degaanka ximan loo yaqaan ee bartamaha soomaaliya ku yaal tuduc ka mida tixuu tidiyey oo angarafalay ay bulshadu u bixisay ayuu aadan gurey inoogu sheegay arrimo dhowra oo qofku uu khayrka iyo ijaabada ku seegi karo kuwaasoo uu ku daray xoolaha wadaadka oo la dhaca iyo waalidka oo habaar laga kasbado wuxuu yidhi culimmada ninkii ka ordiyoy eray xun gaarsiisay laba soo ogaaye ninkii waalidka inkaaray in ijaabo loo celin hayaa sow angaraf maaha dareen wadareedka bulshadu siduu isku raacsan yahay habaarka waalidka waa la iska ilaaliyaa waxaana la qabaa muraad u hagaaga nolol xasiloon iyo nabad gudaha ahiba inay u beelaan kolba dadkii dhalay qofkii ay ku halgaadaan murtida soomaalida ee casriga ah korkii loo noqdo arrintaana markhaati looga doonto waxaa dhallinyaradii 1970nadii maankooda ku soo dhici karaysa hees jacayl ah oo waayadaa uu fannaan da'yari ku cadhaaclay waxaa la yidhi inan ay sheeka ka dhaxaysay ayuu fannaanku aad u jeclaaday hurdo iyo harba waa u daayey kolkuu anfacadii uga go'ayna cadaybuu ka dhuubnaaday si kale kuma garatide daqiiqad walba oo noloshiisa ka mid ah ayay la wareegtay hase ahaatee himiladiisii ahayd inay xelihiisa noqotaa gadaalkii way u hirgeli weyday dadkii dhalay ayaa iska hortaagay siduu isagu u qaatayna ceeb kale muu lahayne jeebabkiisii maraabuu eersaday gabadhiina uu ku waayey waxaa soo gaadhay in la siiyey nin kale oo iyada iyo waalidkeedba wax ugu filaa dabadeedna wuxuu jeclaystay ninkii way diiday in warkii loogu daro mase dhicin allah u naxariistee fanaanka oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan xasan ayay maskaxdiisu maantaa darartay isaga oo door biday wixii la soo gudboonaaday inuu suugaan inoogu soo gudbiyo markaabuu heesay wuxuu tiriyey heestii ay murugadu ku saynsaamnayd heestiisii rafiiq la baxday ee uu isku duway kolkuu garan waayey rafaadkii la marsiinayay waxa uu ku galabsaday wuxuu dib u malacsaday dhaqamadii uu naftiisa ku yaqiin iyo dabeecadihii isaga u gaarka ahaa wuu isxisaabiyey dabadeedna wuxuu isweydiiyey rag allow haddii aanan abiidkay xoolo agoomeed dhicin gar la ii keensaday haddii aanan eexa ka gelin wadaad qur-aanka ee bedebadda ka shubaaya haddii aanan nafta ka qaadin intaan caasi ku noqday haddii aanay waalidkay habaar ii guntin been iyo wax aan jirin sheegistood haddii aanan caado ka dhigan intaasba haddii aanan weligay ku kicin maxaa waayaabe ayaankayga xumeeyey maxaa wahanka iyo walbahaarka qayb iiga dhigay saddexda bayd ee ay heestu ka kooban tahay midka ugu dambeeya ayaa wuxuu ahaa mufti diinta raadshoo qur-aan ruuga maan dilin habaar waalid maan rogan runna been kamaan dhigin adaan raadcadaadii inta aan u rubad go'ay welina aan rucleeya roobkii da'ay iyo ramaaskii ka soo baxay ima raalli geliyaan rafiiqaygiyey warmaad igu ridee hay riiqine rarka iga dulqaad
dhegaystayaal, toddobaadkii hore barnaamijkii aan halkan idinka maqashiiyey sidaan ku soo carrabaabay, Soomaalidu guud ahaan habaarka way necab tahay wayna sharaysataa. Dhaqankeeda sida lagu yaqaanna waxaaba jira dad gaar ah oo qaybaha dadweynaha ka tirsan habaarkoodana ay ka baqaan. Sidaa darteed waxay bulshadu ku dadaashaa welibana ay isku waanisaa in la iska ilaaliyo habaar kasta oo qaybaha middood uga iman kara. waataan haddaba barnaamijka isaga ah ku soo qaaday habaarka dadka wax dhalay ay ku halgaadaan kuwa ay dhalaan qaarkood. waa habaarka waalidka oo sida la aaminsan yahay laga dhaxlo silic iyo saxariir adduunka ah, aakhira waa halkeede. habaarka waalidka sida ay bulshada Soomaalidu u sharaysato ee ay hoogga iyo ba'a uga filato waxaa inoo sii iftiimin karaa sidii ay ugu magac bixiyeen dhulka ay degmaystaan meel ka mid ah, halkaasoo ah waddo galbeedka dhulka Soomaalida reer miyiga ku dhaqani ay yaqaanaanoo ay ku sadcaalaan. waa waddo aad u dheer oo taxan laga bilaabo degaanka buuro loo yaqaan ee galbeedka geyiga Soomaaliyeed ka mid ah. ceelgaab dhulka ku magacaabanna way si dhex jeexdaa ilaa ay gasho Shilaabo oo ah dhulka Doh la yidhaahdo halka ugu magaca dheer. dadka carrigaas aqoonta u lehi siday iigu warrameenna waa dhul aad u ballaaran. waddadaas iyada ah ee isku xirta marka lagu lugaynayana si daran baa loogu rafaadaa. dherarkeeda ka sokow dhulka ay dhex martaaye waa hawd jiq ah oo haddii la maago in iyada docun looga leexdo aanay fududayn in tillaabooyinka si fudud la isu daba dhigo. waa waddo ciddii ku sadcaashaaye ay kala kulanto oon, gaajo, kulayl, daal, cagamurux iyo dandarro oo idil. weliba waxay ugu daran tahay xilliyada jiilaalka oo dhinacyadeeda iyo dhulka u ogagaletoona cidan loo harsado ama loo hoydaayey aysan deganayn. haddaba dhibtaas iyo cagamuruxaas lagala kulmo iyaga oo maskaxda ku haya ayay reer miyigii ku sadcaali jiray waxa ay habaar waalid u bixiyeen waddadaas iyada ah iyo weliba dhulka ku xeeran. sida kolka magac bixintaa laga garan karo waxaa iska cad in la leeyahay waddada caynkaasa wuxuunbaa la badaa oo keliya ruux leebabka habaarka intuu waalidkii ku halgaaday uu la helay. waxaa ku sadcaala oo qura qof markiisii horeba ku xukunaa habaarka waalidka guuldarrada ka dhalata in ifka lagu dhadhansiiyo noloshana lagaga gooyo. dhinaca kale haddii ay bulshadu qabto inay laga maarmaan tahay habaarka waalidka in la iska ilaaliyo waxay kaloo qabtaa ducadoodana in la jiriyo si walbana loo doono. meel ay joogtaba waxay Soomaalidu waajib u aragtaa inay warasadu u dadaasho ducada labada waalid sidii ay ku taabi lahayd, taasoo laga fisho khayr iyo wanaag badan oo ifka keliya aan ku koobnaane ruuxa lagu galladaa ay u badan tahay inuu aakhirana u aayo. allaha u naxariistee gabyaagii reer Buuhoodle aadan Yuusuf Axmed oo aadan carab loo yiqiin ayaa 1968 gabay siyaasadeed uu tiriyey wuxuu ku daray tuduc uu ku muujiyey qofkii ducada waalidkii ku guulaystaa wanaagga iyo dheefta uu ka heli karo. wuxuu yidhi dooxada waraabtay oo in badan daadku mulaciyeeyey iyo duco hadduu waalidkaa dacalka kuu buuxsho labaduba dura ayay ahayd inay dux reebaane waayeelna wuxuu daalacdaa doogta loo dhiman. dadka qaarkooda ay Soomaalidu karaamada u tiriso sidaas awgeedna ay habaarkooda ka baqdo waxaa isaguna ka mid ah tolka uu ka dhashay ninka madaxda u ah oo weliba ka facna ay awowayaashii u soo talinayeen. ninka uu xilkaasi saaran yahay oo ay Soomaalidu ugu yeedho magacyo kala duwan sida ugaas, boqor, suldaan, garaad, wabar, malaakh iyo qaar kaleba waxa uu ahaan jiray nin la maamuuso, nin in la darajeeye mooye in la xumeeyo laga dhowrsado, nin taladiisa la yeelo weedhiisana si wacan loo dhagaysto. markii muddo la joogaba tolkii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa shirarkii uu isugu iman jiray waxaa hagi jiray ninkaa iyaga u duuban. tala kasta oo ay odayadu gaaraan isaga ayaa u guddoomin jirayoo markii la wada yeelo ku ducayn jiray. ninuu u roonaa iyo ninuu u daraaba
kolkii uu guddoonkaasi dhaco waa la wada raaci jiray, in lagu gacan sayraana dhif bay ahayd. taana waxaad ka garan karaysaa mahmaahdoodii ahayd gar dabadeed guuguu baa nacay. hase ahaatee marmar ayaa la arki jiray fadaq aan loo ducayn oo kolkuu arko inaan isaga dani ugu jirin ka hor imaan jiray taladii iyo guddoonkii bah iyo boqorba wadajirka loogu gaaray. fadaqaas oo kale diidmada guddoonka tolka kuma ekaan jirine wuxuuba madasha ku aflagaadayn jiray guurtidii guddoonka ku soo talisay iyo weliba duubiga reeraha ee ku dhawaaqay kuna duceeyey. markaasba inta shirka fadhidaa waxay qoonsan jireen deelqaafkiisa aan meesha qaban, waxaana loo wada fili jiray aaye xumo goobtaa ka raacdaa inay la caraabi doonto. waayada dambe haddii ninkaas fadaqa ahi uu si uun u guuldarraysto oo cudur aan dab iyo sari toona lahayn uu ku dhaco, ama uu saboolo oo aroorta hore gorof maran geerasha kula soo kallaho, amaba qaar carruurtiisa ka mid ahi ay asaagood ka haraan, markii la arko ninkaas oo dhibaha haysta si uun ula dalleensan ayay odayada taariikhda noloshiisa yaqiini soo bixi jireen oo waxaa haysta sababtooda dhallinyarada u sheegi jireen. waxay u aanayn jireen in laga gaaray duqii reeraha u duubnaa maalintii uu geedka shir ku caayay, madashii ilgeyrta ahaydna uu ku aflagaadeeyey. sidaa daraaddeed ninkaasi madaxda ah habaarkiisa iyo dhugashadiisaba aad bay uga cabsoon jireen, gaar ahaan kolkuu yahay nin ku tilmaaman garsoor aan dhinacna u dheeliyin, gar eexa aan weligii naqin, qormada uu u taliyana sinaan ku dhaqa, danaheedana aan ka seexan. fadaqaas habaarka duubka tolka laga gaari jiray ka sokow, madashii lagu dhan yahayba waxaa jiray rag kale oo sidaa la rumaysnaa ay ilaaco ka dabageli jirtay, kuwaasoo doodaaga geerjoogga ahi uu ugu horreeyey. taana aan ku tusaaleeyo allaha u naxariistee ninka ahya gaaray lagu magacaabi jiray oo ka mid ahaa qarnigii 20aad dadkii gobollada dhexe ee Soomaaliya ku dhaqan jiray. raggii yaqiini siday ku tilmaameen wuxuu ahaa nin aan weligii gar lagaga adkaan, sida qareentaba baran oo kalena dacwiga cidda ka soo horjeeda dabaysha u raaciya. soomaalidu siday qabtana ninka sidaas ku caanbaxaa wuxuu halis u yahay in habaar ku dhaco. waxaa isha la hela garta maalintaa geedka la keenay intii goobjoogga u ahayd ee aftahanimadiisa la ashqaraartay. sidoo kale waxaa iyana la qabaa isaga ama ragga uu dhalay inay eersan karaan habaarka dadkii uu afkiisa xaqoodii ku doodsiiyey, kuwuu inta marinkoodii ka habaabiyey uu gartoodii oo cad gardarro u rogay. ninkaas waa kaahiye ayaa berigii dambe xanuunsaday. waxaa ku dhacay baa la yidhi cudurka ay soomaalidu shimbirka u taqaan ee waxyeeladiisa uu afku la marooro. nin ay waday ahaayeen asi ay muddo kala maqnaayeen oo cudurkaas kadib soo booqday ayaa ku yidhi, maxaa kaahiyow afka kaaga dhacay? kolkaas buu ugu jawaabay erayo aad u tira yar, ha yeeshee si wacan inoogu soo koobaya wixii ay soomaalidii hore ka rumaysnayd aftahanka geedjooggaa iyo halista ilaysiga iyo habaarka ah ee uu geedka shirka kala tegi karo. wuxuu ninkii wax weydiiyey ku yidhi, hebelow, afkuu eeday oo uu uga jeeday cudurka afkiisa marooriyey inuu isla afkiisu u keenay. waxaa ka dhaadhacsanayd goob alla goobtii ay garitaal oo uu ka dabeebtaba sidii loo lahaa afka alla ku goohilimada hadalka heli ogaa in afkiisii kala jeestay, sidaasna uu aftahamadiisii ku eersaday. dhegaystayaal, weli waa habaarkii. waa indha-indhayn ku saabsan dhaqan ahaan aragtida ay soomaalidu habaarka ka haysato. kolba qofkii la habaaraa dhibaatada uu ka malaysan kara iyo dadka qaarka ay habaarkooda ka baqaan, sida waalidka iyo madaxda tolalka ee magacyada kala gedisan loogu kala yeero. maantana waa qof kale oo isaguna ku jira bulshadii hore ee soomaalidu, dadkii ay habaarkooda iska ilaalin jirtay, isagana digi jirtay. waa tahay soomaalidii reer miyiga ahayd waxay si weyn uga cabsan jirtay habaarka iyo isha ninkii ay ilmidiglaha ku tilmaami jireen, kaasoo la arki jiray oo qura xilliyada dagaalada iyo sabaanada ay colaaduhu aloosan yihiin.
aydun haddaba si wacan ilmidiglaha u garateene aan sii faahfaahiyo. laba qolo oo Soomaali ah ayay si uun colaadi u dhex mari jirtay. inta ay goor barqa ah isu soo saftaan ayay birta isaga asli jireen goobo lagu hoogo oo lagu bo'o, goobo waaga dambe magacyo u gaara taariikhda bulshada ku geli jiray sida Caloolo Cad, Dibira, Gel, Caalweyn, Hoobaaq, Dayax Weerar, Meegaag Ciidan, Canla, Mugweyn iyo qaar kale oo weli la xusuusan yahay amaba xusuus wadareedda ummadda ka baxay. sida la wada og yahayna weligeedba goobaha dagaalada guusha lagala laabto looma sinayn. inkastoo tolkii Soomaaliyeed aanu dhaqan u lahayn jab ku dhacay inuu qirto, haddana labada qolo mid ayaa laga ilheli jiray, taasoo markii ay jabto inteeda aysan birtu salfan oo goobta ka baxsataa ay u badnayd in la isaga haro. ha yeeshee kolkol waxaa dhici jirtay ciidanka guulaystay dhallinyaro ka mid ahi inay baqa eryadaan koox ama nin colkii jabay ku jiray oo iyaga ka baxsanaya. maantaas oo kalena waxaa la malayn karaa ragga colka ka cararaya inay kala dheereeyaan oo kala tabaroon yihiin. waxaa ka mid ah qaar in la qabtaa ay adag tahay oo cagahooda mahdiya, iyo qaar gaabiya oo markiiba inta habsooba tallaabo gediyi waaya, markaana cadowgii uu ka baxsanayay uu si fudud gacanta ugu dhigo. ninka haddaba ay cagihiisu bixin waayaan oo la qabto waa la kaxaysan jiray, waxaana la geyn jiray degaankii iyo rugihii colka guulaystay ay markoodii horeba ka soo duuleen. kolkaas baa bartamaha reeraha geed ku yaal lagu xidhi jiray, waxayna u qaybin jireen dhallinyaro ilaalisa inta aayihiisa laga arrinsanayo. sida la malayn karo, ninkaas cadowgiisa u gacan galay wuxuu ku sugan yahay xaalad naxdin leh oo siday ugu dhammaan doonto aanu suurayn karayn. col baqday lagaala har ayay isku habaari jireen, hadba kii uu habaarkaasi ku dhacaana wuxuu mudan jiray 3 arrimood midood: in inta lagu weyraxo haddiiba kurka la hor dhigo oo uu sidaas ku ahaado. marka labaad, haddii uu yahay nin magac leh, in qoladii uu ka dhashay loo diro fariin loogu sheegayo haddii ay rabaan hebel oo nool inay 100 halaad ama ka badan ay ku furtaan, oo intaas oo maalmood muddo aan ka badnayn nimanka uu u qabiran yahay geel ixtiradaas leh ay xerada ugu soo shubaan. iyo midda saddexaad oo ah in la iska sii daayo inta ragga uu lahaystaha u yahay qaar ka mid ahi ay ku hagoogtaan. colka guulaystay inta uu tashigaa rogrogayo ninka u xirxirani wuu maqlayaa, waxaana suuragal ah goobta lagu hadlayaa inay tahay isla geedka uu ku xidhan yahay hooskiisa. isagu kolba ninkii hadalka qaata ayuu isha la raacayaa, isaga oo afkiisa dhowraaya kana filanaya tala lagu sii daayo intuu meesha ka soo jeediyo in haddana laga yeelo. waa gartii oo waa nin xirxiran, wax kalena uma bannaana. awood uu naftiisa ku badbaadiyaa kuma harsana, tab uu ku baxsan karaana uma muuqato. hadalka la hayo meelna kama soo geli karo oo waxba isaga laga weydiin maayo talooyinka la qaadaadhigayo ee aayihiisa ku saabsan. sidaa darteed ninkaa isaga ah iyo kolba xaaladda murugada leh ee uu ku sugan yahay tu la mid ahi kii ay la soo gudboonaato ayay Soomaalidii hore ilmidigle u bixiyeen, siday ila tahayna waa ku sugeen. si kastaba ha ahaatee, taariikh dhaqameedda Soomaalida markii si guud loo milicsado, colaadihii dhex mari jirayna dib loogu noqdo, waxaa inoo soo baxaysa in loo badnaa ilmidiglaha inaan la dilin la bixiyo. sidaan kuldhow carabka ku soo dhuftayna, dadka inta habaarkooda iyo ishooda la iska ilaaliyo ayay ku dari jireen. waxayba bulshadu isku raacsanayd ninkaas oo kale kii inta ku dhiirada dilaa inuu indhaha beeli doono, oo goor ay noqotaba mar uun cid usha u qabata uu u baahan doono. aan kolka tusaale idinka siiyo ilmidigle colkii uu dagaalku ka dhaxeeyay rag ka mid ahi ay gacanta ku dhigeen, oo intii muddo ah kolkuu geed ugu xiraa ay gadaalkii sii daayeen. wuxuu ahaa dagaalyahan caana oo bulshadiisii dhexdeeda magac dheer ku lahaa. waxba maynan qori jirin siduu maluhu yahay. bartamihii qarnigii 18aad ayuu dagaalyahankaasi noolaa, waxaana la oran jiray aadan xasan kooshin. aadan dinixna waa lagu naanaysi jiray. dagaalyahanimada ka sokow
wuxuu ka mid ahaa waayihiisii raggii gebyi ogaa ee dhagaha furan tixahooda lagu dhagaysan jiray. siday ila tahayna taa ayaa loo aanayn karaa sababta sheekadiisani ay inagu soo gaadhay. yeelkeede aadan dinax jilibkii uu ahaa iyo waxaa culloobay jilib kale oo ay tolwadaag dhow ahaayeen. rag badan ayay iska laayeen, xoolo badanna waa kala dhaceen. ceel iyo cashinba intay iska ilbaadsadeen ayay nindoorkii iska makaleen. colaad aan waxba la isu reeban oo hebelkii magac lahaa oo idilbirta laga aslay ayaa ka dhex aloosantay. inkastoo markii ay isu abtirsadaan ay odaga saddexaad ama kan afaraad ay ku kulmayeen. soo wax lala yaabo ma aha, soo wax soomaalida u gaara ma aha. maalintii dambe iyadoo aan weli colaadihii laga heshiinoo jilibba uu jilibka kale jab la maagan yahay ayaa aadan dinax oo socoto ahi waxa uu u dagtay dhallinyaro dagaalyahano ah oo ka tirsan jilibkii ay dirirtu ka dhexaysay. markaas bay inta hareereeyeen gacanta ku dhigeen. say haddiibana geed quraca ayay labadiblo ugu xidheen, iyaga oo malaha ilowsan wixii ay isu ahaayeen dan iyo daaradna aan ka lahayn. wixii dhallinyaro ahaa ayaa warmaha u looshaday si ay odaga ruuxa u weysiiyaan. waxse taa iska hortaagay colkii qabtay garmadowdii ka midka ahayd, kuwaasoo gabyaagana dhab u yiqiin, rabayna inay bixiyaan ama ugu yaraan laga hadal siiyo inta aan la dilin. ninkii colka ugu da'da weynaa ayaa ku yidhi, wax dhan baad gabayday ood geeraartaye, bal maantana maxaad aadanow odhan lahayd? markaas buu gebyey. wuxuu tiriyey tix dhowr tuduc ka kooban, gabyaannimadiisana markhaati u ah, tix waaye aragnimadiisii laga garanayo oo qaybteeda hore uu isagu isaga warramayo, dabadeedna uu ku xusaayo dil iyo dandarro wixii labadooda jilib ay colaaddu soo marsiisay, isaga oo isla markaana ku talinaya dadku wuu diriiraa wuuna heshiiyaaye wixii soo dhex maray inay xalay dhalay ka noqdaan. wuxuu yidhi, warmahayga dhiig inaan ka tiro uma tumaalaysan, ha yeeshee nimaan ii turayn uma taxniigoodo. culimmada timbiga weyn leh oo tahajudkaa maahi, ha yeeshee salaad kolan tukado towbad ma ilaawo. gobonnimo haddii loo tartamo tiigsa ma idhaahdo, ha yeeshee haddii la abtirsado igu takoor maaha. ragga turuqa waaweyn leh oo tookha badan maahi, ha yeeshee haddii laysu tago layma tabar dhaamo. nin togtiyo nin toogtiis qado iyo nimay u toostaaba ninna looga turi mayn warmaha. riibi loo tumaye laba toolin baa arig tubtii taagan weligooda isku tiimbannay, oo haatanaan timil dhow joognaaye tolan qaaday. kuul caddihii toojayga ahaaye dhulta raray, rag waa toli karaa taaka labadeedee marka ma istufnaa waynagii tiirida ahaynib. labadii meelis ee ahaa dhulta raray, rag waa toli karaa taaka labadeedee marka ma istufnaa waynagii tiirida ahayne markay maqleen ayay dhallinyaradii isku mar qosol la kala jeesteen. waxaana dhaqanka bulshada ceeb ku ahaa adigoo nin weyna inaad calaacasho inkastoo aad gacan cadow ku sugan tahay. calool adayga ayay muunayn jireen. waxay aaminsanaayeen mahmaahdii ahayd, haddaad dhimanayso dhareerka waa layska duwaa. sidaa darteed hadalkii gabyaaga talo oday uma ay arkine waxay u qaateen tarsaasi ay baqdini ka keentay iyo marmarsiinyo uu naftiisa ku badbaadinayo. markaas buu ilmiriglaba ha ahaadee wuxuu ka cabsaday geeridiisa kadib in la isugu warramo. aadan dinax wuu baryootamay wuuna calaacalay maantii la dilaayey. kolkaas buu dib uga gurtay wax yar ka hor taladii uu soo bandhigay, wuxuuna soo jeediyey mid ka duwan oo dulucdeedu tahay, haddaad moodeen inaan fulayoobay haddeerba idila, weligeedna yaan la heshiin, dab dambana yaan la kala qaadan. wuxuu yidhi, ninkiisa inaan tawaawacahayo iyo taawo fulay mooday, nafta tacadigeedaan arkiyo agabladay taale, tubtu ilallah eebbow haddaan toobad soo celin. dabadeed ha la dilo iyo ha la bixiyo ayuu colkii ka arrinsaday. ugu dambaystiina waxay toodii meel martay nimankii ku teliyey in la bixiyo. maxigtadii dhoweyd ee ay ahaayeen buu darteed ku baxsaday, mase waa ilmirigleh habaarkii dilkiisa uga imaan karayey ayay ka yaabeenoo sidaas bay ku badbaadiyeen. waa su'aal aan jawaab loo hayn oo raggii goobtaa joogay ay
dhegaystayaal haddaan mar kale idin xusuusiyo ilmirigle waa dagaalyahan dhinacii uu ka tirsanaa laga adkaaday dabadeedna isaga oo nool la qabtay maalin ay diriir dhex martay colkii uu la soo dagaal galay iyo col kale oo ay goob isku heleen sidii loo badnaa ama dhaqankuba ahaa ninkaas oo kale lama dili jirin waxaana la rumaysnaa qofkii inta u gacan qaada dilaa ha dhowaata hase dheeraatee inta habaar xumi ku dhaco inuu falkiisa eedi doono taana waataan barnaamijkii toddobaadkii hore ku tusaaleeyey markii aan idin mariyey sheekadii aadan dini xasan kooshin oo ahaa gabyaa dagaalyahan ah kaasoo qole ay muddaba col ahaayeen ay maqaadiirtu u gacan gelisay dabadeedna isaga oo aan wax la yeelin ay iska sii daayeen hase ahaatee maantaa ilmiriglihii uu ahaa darteed hadduu aadan dinax ku baxsaday waxaa jiray nin isna magac dheer lahaa oo qole ay col ahaayeeni ay qabatay dabadeedna ilmirignimadiisii ay waxba u lilayn weyday ninkaas oo la odhan jiray xuseen xasan rooble wuxuu ahaa gabyaa weyn oo reer waqooyi ah gabayadii uu tirin jirayna in doora weli laga xusuusan yahay agagaarka hargeysa iyo gaaroodiga koonfurta uga aadan ee xoolo daaqeenka ah ayuu badanaa ku dhaqan jiray qaybihii hore ee qarnigii 20aadna inuu nolol ku soo gaaray ayaa la hubaa waxaase jirtay sheeko xiisa leh oo mudan inaan idinku jalbeebiyo ka hor inta aanan idiin soo gudbin isaga oo ilmirigle ah sidii iyo sababtii loo dilay gabyaannimada ka sokow wuxuu xuseen ahaa dagaalyahan aad looga yiqiin geyigii uu joogi jiray iyo sidoo kale tolalkii soomaaliyeed ee reerahooda ay darsi jireen maansadiisa badbaaday sida laga garan karana wuxuu ahaa ammaanduule colwad badan oo tiro dhallinyaro ah markuu isla helaba qolo ku dhardhaara isagoo ama geeldoon ah ama aardoon ah dhacdooyinka taariikhda noloshiisa lagu xidhiiriyaa siday sheegayaanna wuxuu ku tilmaanaa nin godobta ka maqan aan sahal uga harin haddii xataa ay godobtaasi kaga maqan tahay sokeeye ay xigaale iyo xigto dhow yihiin waa tahay 1912 qarnigii 20aad ayaa gabyaaga berbere lagu xiray waxaana xiray maamulkii gumaysigii ingiriiska ee baryaha ay magaaladaasi xarunta u ahayd taasoo ku timid shirqool kas loogu dhigay odayadii jiribkooduna ay wax ka maleegeen sababta xarigaas raggii wax ka ogaa siday ku warrameen waxay colaadi dhex martay laba lafood oo ku wada abtirsanayay isla tolkii uu xuseen u dhashay goobo dhowr ah ayay fooda isku dareen geelal badan bay kala qaadeen ragna way iska makaleen waxay gaadhay intay aad u kala irdhoobaan inay daaqii iyo degaankiiba ku kala tagaan dhabna u kala ufoodaan ha yeeshee colaad waliba waata heshiiska ku dhammaatee kol dambe ayaa labadii lafood waxay dareemeen tubtii ay hayeen wax aan guuldarro ahayn in aanay ku gaari karin markaas bay labadii dhinac isa soo hor fadhiisteen garnaqsi kadibna waxay go'aansadeen wixii soo kala gaaray inay ka heshiiyaan geelashii ay kala dhaceen inay isu celiyaan raggii ay iska laayeen qoladii dheeri yeelataana inay ogolaato mag laga siiyo sidaas bay guurtidii isku dhaarsatay wadaadadiina ay ku duceeyeen hase ahaatee taladaa lagu nabday waxaa gaashaanka ku dhuftay xuseen xasan oo sidaan soo sheegay labadii lafood ee heshiisku dhex maray middood u dhashay welibana raggii hoggaamin jiray ka mid ahaa muxuu haddaba qoonsaday ma wuxuu rumaysnaa heshiiskii la gaaray inay iyagu ku hulganaayeen mase wuxuu la xintamayey odayadii dhinacooda wadaxaajoodka u galay oo malaha siday la ahayd awoodi waayey dhiig iyo dhaqan xaqii ka maqnaa inay wuxuun ka soo celiyaan sababta ma naqaan waxaase la hubaa markuu xuseen si walba isu hortaagay in heshiiskaas intii muddo ah ay waxba ka hirgeli waayeen dabadeed markii la ogaaday inuu ku howlan yahay qalqaalo duulaan iyo shalay waanwaantii la wada gaaray siduu dhexda uga kala jabin lahaa ayaa odayadii dareen galay markaas bay iyaga oo wada jira tashi kale isugu soo noqdeen gadaalkiina waxay isla heleen xuseen oo ku sugan degaanka inaan nabadi ka hirgeli karin sidaa darteedna loo baahan yahay in si uun looga fogeeyo intii muddo ah dabadeedna suldaankii iyo guurtida laftii uu ahaa ayaa go'aansaday in la xiro oo inta maamulka ingiriiska loo gacan geliyo xabsiga berbera lagu hubsado wuxuu feejignaadaba maalintii dambe ayuu ku dhacay dabinkii loo dhigay
goor galaba ayay fariini berbere uga timi, fariin rag uu garanaya ay u soo direen oo dulucdeedu ahayd: xuseenow, waxaa xeebta berbere taagan maraakiib faranjiyo doonaysa shaqaale Soomaaliyeed. haddaad timaado shaqo waad ka heli, siimaan baa lagu qori, dhowr sano kadibna waxaad soo noqon jeebabkaaga oo lacagi ka buuxdo, taasoo kadima geela kuu goyn doonta. suuma labalabayne intuu rumaystay buu halhaleel waddadii cagta u saaray. dhowr cisho dabadoodna xeebta saaxil ayuu isa sii taagay, isaga oo geela uu feermaannimada ka iibsan doono uu maankiisu kala agaasimayo. dabadeedna waa siduu tashigu ahaaye xabsigii baa lagu tuuray. waa xabsigaa meeshii uu ka tiriyey gabayadiisa lahayo midka ugu caansan, gabaygii uu kaga cabanayay odayadii qoladiisu sidii ay jeelka ugu iloobeen ee ay ugu soo gurman waayeen, isaga oo mar walba xusuusinaya col iyo nabadba wixii uu tolka ugu filaa iyo kaalintii uu ugu jiray cid u geli karta sida aanay u heli doonin. waa gabay dheere aan ka xuso dhowr tuduc oo laga garan karo siduu xorriyeedka qaadka uga xanuunsaday iyo warli'idii haysay labadaba. wuxuu yidhi: suugaanta maansada haddaan siinka ka yagaadsho abidkay ma saranseeriye, waan susubiyaaye soofaha labbaan kaga jaraa saxarka baallaaye, goortaan siyaakhadiyo baan sare u qaadaaye, markaas bay safruu ula kacaan sida mareexaanee aan safeeyo, maantana tixdaan xalay ku soo jeeday. si alliyo faduul baan ku imid sabada xeebeede, weligayba saar iima qaban suudha doonyaha ee sanga dhabarkii, saybi iyo col baan saami ku lahaaye, sir iyo caad samaan iyo xumaan waxaan sameeyaaba amba waan ka soo saari jiray, sayma kii gala sahlana amuurtaydu sow lalama soo yaamo. siyaaxay haddii lala tago isiga kor u duusho, halkuu fuluhu seeraari jiray, saajacnimadayda suryadan ka soo laabi jiray, sulinkii yaa joogsan. awal iyo subayr oo dhan baan kaga sii yaabnaaye, geelaan silsilada u ahaa sudihii yaa daajin. haddii uu sokeeyuhu isdilo waa surduba jaane, gartaan qolo ku suuldaari jiray, nimankii yaa saari. suldaankii iyo cuqaashii miyaan sixin khabaarkayga, isagaase xaajada sirgaxan saabadayn jiraye, saaxiibkay maxamuud miya seegay marinkiisa. waxay xuseen oo kale ugu ducayn jireen: allow nimaan wax ogeyn ha cadaabin. waa isla raggii xabsiga dhigay ragga uu u qayshanayaa ee hiilkooda u dherarsanaya. kolka isagoo ilmirigle ah sababtii lagu dilay haddaan u soo daadego, waxaa la yidhi beri dambe ayaa waxaa maagay gabyaa ay qolo wadaageen si ay laba lafood kala ahaayeenoo jaajaale la odhan jiray, kaasoo xuseen ku sheegay inaanu reeraha u dhalane uu soo seexis yahay. hadalkaa ayaa dhab u damqay. markaa ayuu tiriyey gabay uu ku faahfaahinayo isaga iyo laftiisu waxtarka xaddiga weyn leh ee weligeedba uu tolku ku qabay, halka lafta jaajaale aanay waxtarkaa oo kale sina u sheegan karin. qof ahaanna wuxuu ku faanay deeqsinimo iyo codkarnimo, isagoo dhinaca kalena ku baanay inuu yahay nin geesi ah oo aan boqol dhabba uga leexan, taasoo uu markhaati uga dhigtay siduu u kala gaabiyey qole ay diriri jireen. kolkaas buu gabaygii wuxuu ku daray isagoo jaajaale iyo laftiisa la hadlaaya: cisigu reer ducaale iyo anuu igu cilaalaaya, intaan cali iyo haaruun ka dilay, ciidda way noqonne cid ka sheegta, cawskoo kaluu cunay waraabuuyabu. waagii dambe isaga oo markaa gabow bastii la ah oo 80 iyo 90 u dhaxeeya ayuu sodcaalay. agagaarka awaare isaga oo maraya ayuu ku soo dhexdhacay degmo ka mid ah reerihii uu oran jiray intooda gacantayda ku baxday cawska way ka badan tahay. dabadeedna inta la gartay baa la qabtay, birta ayaa loo listay. ha yeeshee ma ay mindi raacine wixii laga yeeli lahaa ayay dabin ka tashadeen. ugu dambaystiina waxay go'aansadeen marba hadduu ahaa coobir birimageyda ah in aan la dilin la bixiyo. sidaas baa lagu sii daayey. hase ahaatee waa meel wax laga wadaaye, isaga oo raggii sii daayey aan weli ka qarsoomin ayaa waxaa goobtii isa soo taagay oday baasoo meel uu ka yimid aan cidina garanayn. markii las waraystay wixii dhacay iyo ninkii la sii daayey magaciisana loo sheegay, ayuu odaygii ku calaacalay: alla dugaye, ma waxaad sii dayseen ninkii oran jiray intaan cali iyo haaruun ka dilay ciidda way noqon. saa isla markiiba dhowr wiil oo meeriskaasi ka cadhaysiiyey ayaa inta ka daba tegey naftii ka qabtay. wax yar kadibna warmahoodii oo dhiig casi ka tifqaayo ayay kala soo noqdeen. allah u naxariistee ilmiriglihii uu ahaa
xuseen xasan ku badbaadiye gabaygiisii hore. dhegaystayaal, habaarkooda dadkii ay bulshadu ka baqi jirtay kuwii ugu daraa wadaadada ayaa ka mid ahaa. hase ahaatee inta aan arrintaa hoos ugu daadegin aan idiin soo hormariyo meekhaankii uu wadaadku soomaalida dhexdeeda ku lahaa iyo howlihii uu u qaban jiray. diinta islaamka oo ay ku abtirsata darteed si wanaagsan ayay soomaalidii hore u maamuusi jireen culimmadii kitaabka eebba xambaarsanayd ee gudbinta fariimihiisa u jeebanayd. taasina ma sabab la'aynoo dhowr waxyaalood oo ay bulshada ugu filaayeen awgood ayaa lagu weynayn jiray. qur-aanka kariimka ah ayay ardada yaryar u dhigi jireen. markay weynaadaanna tafsiirka iyo fiqhiga shareecada ayay bari jireen. waxay ka jawaabi jireen diin ahaan wixii bannaan iyo wixii xaaraan ah. dadweynaha ayay wacdiyi jireenoo maalmaha iidaha iyo kolba madashii lagu kulmo ayay nuxurka caqiidada afkooda soomaaliga ah ugu sheegi jireen. hantida qofkii geeriyooda laga dhaxlo ayay kuwa xaqa u leh u kala qaybin jireen. waxaa wax laga weydiin jiray axkaamta cibaadada iyo sida ugu wanaagsan ee eebbe loo caabudo. ragga iyo dumarka isguursanaya ayay isu meherin jireen. dad iyo xoolaba wixii buka ayay diin saari jireenoo qardhaas u goyn jireen amaba ay tahliil u tufi jireen. maalintii inta la guuro xeryo cusub la dego ayay col iyo dugaagba reerka uga xirsixiri jireen. xoolihii baxsadana birbirisa lagu helo ayay u akhriyi jireen. waxay abaabuli jireen sanad walba bisha mawliid kulamada loo qabto xuska rasuulka islaamka, nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee, markaasoo waayihii noloshiisa ay caamada u faahfaahin jireen. haddaan soo koobo, waxaa wadaadadii hore ee soomaalida loogu irkan jiray fulinta dhammaan wixii arrimahaas la too ah oo iyaga mooyee aan caamo waxbaba ka aqoon. intaa ka sokow waxay qayb weyn ka qaadan jireen deminta colaadaha. iyaga oo ku kalsoon saamayskii weynaa ee ay dadweynaha ku lahaayeen ayay marar badan wacdigooda oo keliya waxay ku joojin jireen dagaaladii tolalka soomaalida ka dhex dhici jiray. labada col ee ishor fadhiya ayay u kala ergeyn jireen. aayadaha qur-aanka ee cadaabka aakhira tilmaama intay ku cabsiiyaan ayay markiiba hubka kaga dhigi jireen. dabadeedna wixii xaq ah oo ay kala hayaan ayay u kala qaadi jireen. dhimasho, dhaawac iyo dhac xoolaad wixii ay noqotaba. taana waxaynu u daliishan karaynaa allah u naxariistay sayd maxamed cabdilla xasan oo lagu bartay qaboojinta colaadihii ka aloosmi jiray degaankii uu ku barbaaray dhexdiisa iyo heshiisiinta qabaa'ilka ka hor intii aanu caan ku noqon halgankiisii gumaysi diidka ahaa ee xoogagii waaweynaa ee xilligiisii uu kala hortegey. iyaga oo calankii dariiqadooda babinaya, shiikhoodiina uu hor socdo markay soo muuqdaan ama dikirsanaantooda meel fog laga maqlo ayay wadaadada fadhiga uga kici jireen. martigelintooda ayay ku tartami jireen. golo dugsoon iyo gogol wacan ayay haddiiba u wanaajin jireen. xoolaha reerku haysto neefka ama neefafka ugu shilis ayay u loogi jireen. habeenkaana cidda ay martiyaani waxay isu arki jirtay khayr iyo ijaabo cid ay u soo hoydeen. mararka qaarkoodna waxaaba dhici jirtay barakaysi awgeed in la weydiisto toddobaad ama ka badanba inay halkoodaas isaga nagaadaan. iyaguna maalmaha ay degmada ku dhex jiraan ayay ka jaahil bixin jireen wixii ka soo oodma oo masalooyin diineed ah. waxtarka wadaadada ayay soomaalidii hore u arki jirtay wax waajib u dhow oo ay khayr badan ka filan karaan. sidaa darteedna waxay u badnayd reerihii ay martida u ahaayeen maalinta ay ka ambabaxayaan in la guddoonsiiyo xoolo nool oo ay sii kaxaystaan. aadkeedana qof inkaaran mooye qof kale wixii ay afka ku kala qaadaan uma diidi jirin. codsigoodana kuma gacan sayri jirin. bulshada oo idil ayaa u haysatay inay yihiin dad eebba agtiisa weji ku leh oo wixii ay ka duraantaan ka heli og. dad ciddii ay u duceeyaani ay ku liibaanto, ciddii ay habaaraanna ay guuldaraysato. raggii madaxda ahaa ee waxtarka culimmada ku dadaali jiray, ducadoodana jirin jiray, waxaa ka mid ahaa sayd maxamed cabdilla xasan oo isaga qudhiisuba ahaa sheekh caalim ah oo kasmooyinka islaamka laga wada martiyo. wuxuu ahaa nin ay wadaadadu meelo fogfog ka soo tamadiyaan, gacmo buuxana ay kala soo laabtaan. gabaygiisa caanka ah ee ka bilowda xuseenow war baan kuu hayaa waxaa tiraa weeye, walaalow wacdiga layna faray ila wanaag weeye,
waanada astaadkeennu yidhi weeraan raba weeye walbahaarka aakhiro inaan wax u tabcaa weeye wax sanoo aan dooniyo inaan waxu nacaa weeye wabiinima ma fiicnee inaan warac noqdaa weeye waayeelka xaajada inaan ugu wacaa weeye haddii ay waraacaan inaan wari iraa weeye xaqa lagama waabtee inaan waa kan odhan weeye gabaygaas oo aad u dheer meel ka mid ah waa kii ku odhan jiray wadaadkii kitaabba leh inaan wanu qalaa weeye waranqihiyo dhaydana inuu walamsadaa weeye weylaalis meel wacan inaan ugu waraa weeye beri kalena gabayadii uu tirin jiray qaarkood ayuu sayid maxamed ku cambaareeyey tolalkii soomaaliyeed ee ingiriiska la jaalka ahaa halgankii daraawiisheedna ku gacan sayray kuwaasoo uu mar walbaba islaamnimadooda shaki gelin jiray dabadeedna wadaad gebi jiray oo qabaa'ilkaa ka soo jeeday ahaana reer ceeri gaabo ayaa dacwigaas gaashaanka ku dhuftay waxaa la odhan jiray aadan axmed dubbe gabay xoogna waa lagu naanaysi jiray maalintii dambe ayuu xaruntii daraawiisheed ee taleex niman u socda wuxuu sayidkii ugu sii dhiibay tixay in yari naga soo gaadhay oo uu arrintaa ku diidayo dad muslin ah inay yihiinna uu ku caddaynayo wuxuu yidhi dariiqada axmediyaanu nahay eheladeediiye afkana kama dhigno oo jaamacaan idil ka haynaaye umuurudiinka waxaan raacsannahay nebi ibraahiime gaalada ninkii nagu ismaa waanu na aqoone insha allahu aakhirana waa isku arki doonaaye sayid maxamedna murtidhaari buu ahaaye markii ay tixdaasi u timid ayuu garowsaday gabay xoog inuu yahay wadaad waxyaqaan ah oo isagoon cadhan caytaminna jawaabu nin weyn goobta soo dhigay maalintaas buu goostay inuu xiriir dhow la yeesho oo waa wadaade intuu wax taro ducadiisa ha gurubsado oo liibaan aakhiro iyo mid adduunba ha ugu xisho sidaasna daraawiish iyo halgankeeda heel cusub ha ugu helo muxuu haddaba yeelaa halkee buuse ka bilaabaa wuxuu markii hore ku hamiyey inuu hadiyad ahaan faras baxdow ah ugu diro ha yeeshee kolkii dambe way la ahaan weyday maxaa yeelay maantaa gabay xoogda' buu ahaa nin faras dushii qaban karayna muu ahayn alla ilaahay kolka weligiiba gaadiid oday isagaa ahaaye baqal wanaagsan ha u diro dabadeedna neefkii uu u dooray oo si wacan loo shaqlay ayuu daraawiish dhowr ah ugu sii dhiibay keligiina ma ahayn waxaa iyana ula socotay masafo qurux badan oo sayidku uu wadaadka ugu sheegayo sababaha uu baqalka ugu soo diray ee senge ama geenye midkood uu ugu soo diri waayey sababaha oo 9 ahaa tu walbana tuduc gaara uu ku sheegay aan qaar ka mida halkan idinka maqashiiyo wuxuu yidhi sayidku marna baad aan leeyahay bilna kuuma imanine biyo aan ku siiyana bushimaa ma saarine in kaley bulaysay adse beer ma dubanine bismillah bilowgaan baqalka kuugu soo diray baasaha abaareed hadday beeshu geedido boqolaha harsimadii haddii budulka lagu dhaco buska inaad ka fuushaan baqalka kuugu soo diray haddaad baadidoon tahay baytaalis xoolaad aadan badaha dheer iyo biri kale u saafurin barax inaad ku rarataan baqalka kuugu soo diray nin wadaad basariyana barakaa ka raacda anna waanu baahnahay ducaadigu bantooqdee inaan khayr balleeyaan baqalka kuugu soo diray bacdigeedna aakhiro bacadkiiyo kulaylkii bancaddaha qiyaamaha sida bilig hilaac yidhi baalal inaan ka yeeshaan baqalka kuugu soo diray sidaas bay ducada wadaadada u jirin jireenoo weliba ninka madaxda ahi uu taageeradooda u dooni jiray maantaa kadibna da'ba ha ahaadee wuxuu gabay xoog noqday gaashaan bir ah oo aftahamadiisa daraawiish ku daafaca wuxuuna tiriyey oo loo hayaa gabayadii sayid maxamed iyo guutooyinkiisii lagu ammaanay laguna taageeray midka aan israahdo allaylehe waa ugu culus yahayoo waa ugu murti badan yahay labadaba allaha u naxariisto barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga dhegaystayaal waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo